waxaan si gaar ah u salaamayaa gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha golaha wakiilada labada shir gudoon dhammaan mudanayaasha labada aqal golaha wasiirada xubnahooda salaadiinta iyo madaxda dhaqanka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale iyo haldoorka kale iyo mas'uuliyiinta dawladda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة كورقبتين سفر بانو بحني وحانو كوكال صورنا هاي سفر كاسي وشيددي ولها يسيدي أنا قلت لك الله إن وقف صومي ونفلي هدي الله يلاحظه. وحانو مرتوها هاي المدحوين هذا الكينيا والله كلناي danaha labada dal baanu si qoto dheer uga wada hadalnay intii aanu ka wada hadalnayna waanu isku afgaranay hay'adaha kale qaranka ee dalka Kenya waa la oragnay oo ugu mudnaa baarlamaanka dalka Kenya labada aqalba iyagana si wanaagsan baanu u wada hadalnay arrimaha kale ee Somaliland iyagana si wanaagsan bay noogu qabsoomeen oo ugu muhiimsanaa kulankii aan la yeelanay beesha caalamka isku jirta wasle inta badan waxa kala socoteen saxaafadda iyo social media dhammaan dalalka Somaliland ay saaxiibka yihiin iyo qaramada midoobay waxaanu kaloo noo suurto galay intii aanu joognay ku faraxsanay inaan ka qayb galno safaaradda Somaliland oo xafiis weyn u soo guurtay munaasabad weyn loo sameeyay mudanayaasha dalka iyo mas'uuliyiinta dalka Kenya ka soo qayb galeen taariikh badan laga sheekeeyay taana kala socoteen meediyaha waxaan kaloo ku faraxsanahay inaanu ka qayb qaadano inaanu shacbiga jaaliyadda xooga weyn ee da'da weyn ee dalka Kenya oo cimrigeedu ka badan yahay 200 sanadood aanu kala qayb galno dadku manaana xuska maalinta 18 May qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Kenya waa wadaag madaxweynaha waa la kulanay dhinacii kale wadaaga ahaayeen waa la kulanay oo hogaaminayo Raila Odinga waxaan la kulanay dad badan oo ciyaana oo Professor Lamumba ka mid yahay waxaan la kulanay mas'uuliyiin fara badan oo aan hadda magacyadooda halka ka sheegi kareynin Somaliland waxyaabo loogu soo joogsanayo ee lagu tixgelinayo waxa ka mid ah doorashadii berigii wadalka ka dhacday waxa ka mid ah inaynu amnigii xasilinay oo qaramaynta ciidanku waxa laga yaabaa inay nala fudayd yaraa laga yaabaa ma nala culays yaraa laakiin dunidu wax weyn bay aragtaa iyadoo dunida gaar ahaan Afrika colaadaha markay colaad yar meel ka dhacdo ama xasiloon darro jimciyada quruumaha ka dhaxaya shaqaba laga dhigtaayo sanaday socdaan waxa ka mid ah inaynu nabad xasilinay ceelafweyn dunidu wala socotaa inaan nabad ka dhignay dunidu waxay la socotaa inaynu ciidamadeena tira koobnay oo biometric system u sameynay intaasi waa waxyaabaha dadku iyo dawladuhu bay nagu soo dhaweynayaan inagu tixgelinayaan waxaas leeyahay Somaliland guusheedu way imanaysaa اعترافkeeduna wuu imanaya wuxuu ku imanayaa markaynu isku duubnaano aynu nabadana ilaalino shaqooyinkeenana qabsano shaqo badan bay noo taala waxaynu qabanay wax yar waxaynu dhiman wax badan marka waxaynu ku filin karnaa waxa ay noo dhiman midnimada iyo nabadda
somalilandna labadaasay ku iibsamaysaa insha allahu dee gudaha hawl badan baynu ka qabanay inkastoo in badan harsan tahay dibaddana waxaynu bilownay marka inaynu dalalkii aynu dariska ahayn aynu tagno marka laba wadan waanu tagnay Djibouti iyo Kenya Ethiopiana waxaan filaynaa si dhaqso ah aan u tagno haddii la yiraahdo Ethiopia waa dal muhiim ah waxaan shacbiga uga mahadnaqaynaa inaynu dalkiida nabad ku soo wada celinay inagoo gacmaha haysanna اعترافنا إنه قام يسرسين يريدون هذا الله يلا وإنه كواش شقينا حكومة كل جيتكم في الله قف كستوم واضرة ودريد تشوجا ما جودها تشوجا وهو ثاني إنه قريب كلية هاي إنه كان اعتراف سوماليلاند وحنو شيء يوم شعبي جاي وانو مهضنقيا يعني ده دورتين مدحوينه يقدر waxaan ugu mahadnaqayaa oo isiinayaana 5 sano ay doorateen horta maalin lagu dari maayo saacadna haddii la ka dhigo